نبي ما حين شيخ قرضاوي قرضات كيسا والليهي فتاو لغسو هرجيدي كان واجران وحان شخصيا كنت يدانهي واجران بشر بوتانا محيطو لو أحا تفر بدنا ووين بو كقوري صلاة وكقوري كتاب يقدم بيه مكانوشيسا صلاة بو كقوري فقه الصلاة فقه الزكاة وقوري فقه الجهاد وقوري فقه المعاملات وقوري اللهم صل على سيدنا فقه الدولة وقوري فقه السياسة الشرعية وقوري انت صرنا بكتب أيو محيطو لك قوري جانب فقه حلقة أيو كاها أفريس ديتك إلا ما أنت شيخ علاقة في عن أيان الله بفضل الله تبارك وتعالى مر أن توصي سجى وحوجبرته مر أن توصي سجى ولا فريستو مر أن كتبتيسة هي مبدئيسة هي منهج كيسة عن محيطه لأن قنعه بفضل الله تبارك وتعالى وحن ليابي أو لبية سجاشن كي وحسوس زيارة قطر دكتور محمد الطيب دكتور لورنجلو سوداني وكلية اللغة العربية جامعة الخرطوم محيطه لهايستي عميد اللغة العربية عندي رجل جعلان الشيخ يوسف القرضاوي حداد ربطان جعل كيسا جعل كان وهايسان دب إنه يهي وحلا ربا منهج كيسي إن الوطن أو سيدي وحب رنيي يسيدي أدى ذالي لح يساقاشن جير إساقو أوجرا أي كتاب كي يقدم بيه وقوري تضوب بقول أو بيج فقه الصلاة أيكو قوري مدالين warbaahinta nolosha islaamka waxa caalamka islaamka iyo ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka baxay caalim weyn sheekh Yusuf al-Qaradawi rahimahullahu rahmatan wasi'a ilaahay dambigiisa ha dhaafo ilaahayna qabriga ha u nooriyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu ku aqbalo min al-mutaqabbalina indahu ya rabb al-alamin sheekh Yusuf al-Qaradawi saameyn weyn ayuu caalamka islaamka kaga tagay 96 jir ayuu ku go'ay مجال كستو دعوذات دور وين بوكا قاتي منابرتا كمرخاتي أها قلن كيسة أيا بركيسنا كتب فربضان وعالم كإسلام كي وقتغي مجال والبلاهيد فقه واكا قري بل وحانونا كرا زمن كان دنبه عيد فقه وقا ديريدي زمن كان دنبه إناني هبياراتي بجيرين سباريرا رحمة الله عليه رحمة واسعة كلية ما أهين مقلد تقليد سذي تدكي كهريي إن كستور لغو تريو فقهاء شافعية إن كستور لغو تريو حدنا وحو قاري شيخ قرضاوي درجة الاجتهاد إنه كو اجتهاده أو مسائل قارة ومحيطه لي يساقو كو استنباط وأحكام زيادة شرعيها فقهنا هالكاسو محيطه لي كقاري كتب فربضنا ووين بوكو قوري صلاة وكا قوري كتاب يقدم بيه مكانوشيسا صلاة بوكو قوري فقه الصلاة فقه الزكاة وقوري فقه الجهاد وقوري فقه المعاملات وقوري اللهم صل على سيدنا فقه الدولة وقوري فقه السياسة الشرعية وقوري انت صرنا بكتب أيو محيطه لك قوري جانب فقهها حلقة أيو كاها كتاب كيسي عانكا هاي meel walba ka dhacay afaf badan lagu qorayna wuxuu ahaa kitaabkiisi al-halal wal-haram fi al-islam oo isaga laftiisuna ah min baab al-fatawa fatwadaha ee isla uu kaga hadlayay jaanibka labaad oo culayska uu saaray wuxuu ahaa sheekhu uu juhdi badan uu geliyay waxa ka qoray waa tarshiid sahwa al-islaamiyya oo afhayeenkeeda waxa uu geliyayna عمركيسا يو عربكيسا يو ديدكيسا يو دوحيسا uu geliyay sidii loo hagi lahaa abnaa saxwa islaamiga baraaruga islaamka dhalinyarada waliba sidii loo hagi lahaa wax loogu sheegi lahaa loogu dhex jiri lahaa waxa uu tusaale u ahaa culimada ku dhex jirta dhalinyarada ku dhex jirta ee la jooga ee la dareenka ah ee hagaya ayuu kamid ahaa jaanibkana door weyn buu ka qaatay lixdanadii iyo toddobaatanaadkii bilowgii horena wuxuu door weyn ka qaatay isaga sheekhiisii Sheekh Maxamed Ghazali rahmatullahi alayhi ajma'in sidii looga hortagi lahaa shubuhaadkii iyo afkaartii lidka ku ahayd islaamka ee dhalinyarada inay maran habaabiso u suurta gelinaysay waxa ay dagaal lama gabasho leh ay ku qaadeen fikriga ishtiraakiga ahaa fikriga hanti wadaaga ahaa ayay maxay toolay ku qaadeen oo maxay toolay garba la tusaaye qalin la tusaa aqli la tusaa carab la tusaaye oo halka uu juhdi weyn u sheekhu maxay toolay ka galay dhalinyaro fara badan bacda Allah subhanahu wa ta'ala ay ku sugnaadeen fikirkiisii iyo hamigiisii كذلك وحو دور وين كقاتي أو شيخ سفر رضيسي وحلو يقاني الفقيه الطيار فقيه أنت يا رد كدقين يا شيخ اللو يقاني لحظة قارضة دونكم محيطوا لو مري مؤتمرات يا الندوات
iyo multaqayaat caalam alislaami iyo caalam algharbi meel aanu u marin ma jirin dacwadda iyo faafinta diinta islaamka. wuxuu xubin sheekhu ka ahaa raxmatullaahi caleyh raxmatan waasica, xubin firfircoon majaalista fiqiga caalamka islaamiga ka jira oo idin ka Maka al-Mukarrama ha noqdo, ka raabita alcaalam alislaami ha noqdo, ka atacaawun alislaami addawli ha noqdo, majmac alfiqiga maxay tole walbuxuuth alislaamiya fi alazhar maxay tole ha noqdo. intaasoo idilba wuxuu ka ahaa xubin firfircoon ayuu ka ahaa. laba majlisna isagaaba maxay tole aasaasa ka ahaa. midi waxa weeye almajlis al-Awrobi liliftaa'i walbuxuuth oon ku sharfay anigu ilaahay igu sharfay inaan sheekha xubin kala mid noqdo oon la joogo anigoo matalaya muslimiintii deganeed waddanka Finland beriga. iyo kii ugu dambeeyay sheekhu uu sameeyay ahaa al-ittihaad al-caalami liculamaai almuslimiin, isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ay karsiiyeen isagana xubin inaan kala mid noqdo sheekha bifadlillaahi tabaaraka wa tacaala. intaasoo idil wuxuu ka qayb qaatay sheekhu hagidda iyo fatwada iyo faafinta caalamka islaamiga. takhasuska sheekha asalkiisu waa azhari sheekhu كلية أصول الدين أزهر بمحيطه كبحي مركا علم الكلام وعلم العقائد وعلم الإلهيات وذي دي بمحيطه لها أقونها بمحيطه له برتي رجوا وين وعالم كمسلمين تأزهر مركا مقعية وين كلها وأها معلمين وأها لما معلمين بشيخ سفي عن شيء جري وسامين وين كلها شيخ عبد الله دراز رحمة الله عليه رحمة واسعة شيخ الأزهر ودكتوراه في الأخلاق الإسلامي كسوقاتي كتاب كيسي وينا دستور الأخلاق في الإسلام شيخي قر وشيخ شيخي سوي كذلك وح شيخي ساها عالم كي فقيه أصولي وينا يا مصر رحمة الله عليه رحمة واسعة أبو زهرة رحمة الله عليه سجن وأودك جري كذلك وح شيخ عن كم مقنين الجانب العاطفي جانب كتزكية يا التربية يا التصوف يا بربارين نفط يا كأتكانتا iyo laylinta naftuna odaybuu sheekhu maxay loo ahaa kutub fara badanna waa ka qoray fiqhu tazkiya fiqhu tarbiya fiqhu as-sayr ila Allah azza wa jalla was-suluk ila Allah azza wa jalla janibkaasina janib weyn ayuu ahaa. janibka shanaad ee sheekhu uu baariska uu ku ahaa sheekhu shaacir buu ahaa شيخ قبيابوها ولولا أن شعر يزري بالفقهاء لكنت اليوم أشعر سيدي إمام شافعي يريد هدانو قبيقو فقهاء داوعين ما أنت رجع واوين وكفقه سنان لها وكيري إمام قرضاوي رحمة الله عليه باب كشعر كان إن الشيخ لو قدم بيو أو كوغوستا carabkiisa ku goosta dareenkiisa iyo naftiisu waxa ay tabanayso iyo naftiisu waxa ay diidayso iyo diintiisa waxa ugu heelinayaba gabayaabo hayo carabkiisa maxay ku goosta ayuha jaanibka sheeqarada wuxuu ahaa kadalika jaanibka lixaad isla wax kale wuxuu ahaa nin raxmatullaahi calayhi leh ha iyo may diidana waxna ogolaada markaa way isku dhaceen maamulkii beriga ka jiray Masar ee Jamal Abdel Nasser iyo tiimkiisii qaxooti buu ku noqday wadanka Qatar halkaas maxay jeelkiina waa galay dadkii lagu cadibay jeelka ayuu hayay in badan maxay ku jiray jaanibkaana doorka weyn ayuu maxay ayuu ka qaatay. waxaan kaga baxayaa wuxuu had iyo jeer isku hawli jiray sheekhu aniguna si hoose ayaan sheekha cilaaqo ula lahaaday oo kulankay koowaad sheekha la kulmay 1984 ayay ahayd 84 ilaa maanta sheekha cilaaqo fiican ayaanu lahayn bifadlillahi tabaaraka wa tacaala. mar aan toos isaga wax uga barto mar aan toos isaga ula fadhiisto mar aan kutubtiisa iyo mabda'iisa iyo manhajkiisa aan maxay aan ku qanco bifadlillahi tabaaraka wa tacaala. waxyaabaha waan isleeyahay wuxuu ku ahaa imaam ayuu ku ahaa wuxuu ahaa inuu yareeyo khilaafka intuu yareyn karayo dadka intuu isku keeni karayaan inuu maxay isku keeno. wuxuu aad iyo aad oran jiray masaa'ilka fiqiga iyo furuuca lama ummadda hal fatwa laguma wada qaadi karo. ilaahay baa u abuuray walidaalika khalaqahum ilaahay baa saa ugu abuuray subxaanahu wa tacaala ee hala isku ixtiraamo oo hala isku sharfo oo hana lagu dood maxay cilmi ah sida xaqa loo heli lahaa laakiin qofna yaan ijtihaadkiisa lagu fogeynin qofna yaan ijtihaadkiisa sumcadil yaan lagaga dhigin. qodobka sagaalaadan kaga baxaya waxa weeye wa maca dhalika kulluhu kana basharan bala lam yakun rasuula. inta aan sheegay bashar buu ahaa nabi ma ahayn sheekh Qaradaawi qaladaadkiisa waa leeyahay fataawo lagaga soo horjeedi kara waa jiraan waxaan shakhsiyan ku diidanahay waa jiraan bashar buu taana maxay u ahaa sida qeyrkiiba maxay
ay u akhtaeen wixii wanaagsan uu ka tegayna waanu qaadanayna waynu ku camal fali doonaa wixii aan isleenahay daliil sharci ah ayaa diidana waa kuma qalidayno sida fuqahadii dhammaantood ay maxaytoole yidhaahdeen wixii aan dadaalay waa dadaalkaygii intaasi wixii kitaabka ilaahay sunnada ka soo horjeedana hadalkayga gidaarka ku dhufta bay wada yidhaahdeen marnaba sheekh Qaradawi wa Abu Hanifa an-Nu'man wa Malik ibn Anas wa Muhammad ibn Shafi'i wa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal marnaba kama maxaytoole fadli badna afartaasba intaasay yidhaahdeen waan dadaalo waxaan dadaalay waanu qorno waanu faafinay wixii aad aragtaan inuu nas sharci ah ka soo horjeedo hadalkayga ha u aabayeelina intii baan sheekh Qaradawina maanta aanu ka daba leenahay wixii uu ku dadaalay ee uu qorayna wixii wanaag ahna waa ku camal falayna waana kaga dayanayna wixii aan isleedahay sharci ahaan iyo masaa'il ba sheekhaas laga xoog baday ama daliilka ku agmarayna la hurmata illa li kitaabillahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wasallam kitaabka ilaahay sunnada ayaa madaxa maxaytoole inoo saar oo in maxaytoole aan ku sharfayna caytamimayno isdhaleecayn mayno qofka taariikhdiisa dumintiisa waxaasi waa manhajkii ahlu sunnah wal jamaacah aanu maxaytoole ahayn taana halka ayaan maxaytoole leeyahay waxaan kaga baxayaa dhalinyaradii jecleed sheekha iyo dacwadiisa iyo fikirkiisa sheekhi waa socday sidii uu yiri أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله وحده فإن الله حي لا يموت وحين الله يحي عدي رجع جعلان الشيخ يوسف القرضاوي حداد ربطان جعل كان وهاي صدب إنه يحي وحلا ربا منهج كيس إن الوطن أو سيدي وحب رنيي يسيدي أود ذالي لح يسغاشن جير إسوغو أوجرا أي كتاب كي يقدم بيه وقرأ تضوب بقول أو بيج فقه الصلاة أيكو قرأ مدالين حتى مركو كعي كروايو سعون كروايي وحو بلابا إنو خطبة الجمعة فده إنو محيطول كو أخريو وقري إميكا لوشي وحي يقدم بيو أنوري وحي هايد كتبتيسيو نمبو موسوعة كسمية بقول كتاب أيه نقطة بقول مجلد أيه نقطة مجلد والبا تقريبا 500 أو بيج أيه محيطول كجرة جهدي يسوحو هاقف أن دالين أو أن فريسان أو أن أقونت محيطول إسكي كبرينين وحان ليابي لبيا سغاشنكي waxa soo ziyaartay Qatar دكتور محمد الطيب دكتور لورنجلو سوداني وكلية اللغة العربية جامعة الخرطوم محيث لهايستي عميد اللغة العربية أها مراجع التفسير في القرآن العظيم في السودان أها لبيا سغاشن كي محيث الأزمة المثقف في العالم العربي محاضرة وكقلي قطر وكقلي شيخ يوسف قرضاوي هوسي سوف يستيو وقد يقل انتو قاتيب وكفى إذا يستيو ومحيث له وحو كدغتي تصالنا هلكا waxa uu nagu siiyay marka idabta iyo tawaadu culimadu inay leeyihiin inuu qofku inta uu nool yahay inuu wax baranayo imaam ahmed abi abdullah ahmed ibn hanbal baa la arkay isagoo oo ordayo oo warqad iyo buugagtiisa haysta markaas aydan ya imaam kolka imaam baad noqotay wali waxbaad dhiganaysaa hadalkiisa caanka ahaa buu yiri nacam min al mahbarati ila al maqbara qalin farbaradka ma kan baranay ila qabri inta la dhigayo buug iyo qalin baa sidanaya waxbaan baranaya marka dhalinyaro majdigii iyo sharaftii iyo aqoontii uu sheekh Yusuf Qaradawi uu maxay ka tagay iyo culimadii la midka ahayd ay ka tageen sharaftu waxa weeyaan inaad idinku halkii inaad ka qaadaan oo wax barataan oo diintiina barataan oo diintiina aad ku faaftaan diintiina faafisaan shubahaadkana aad maxay ka qabataan diinta islaamka iyo dacwadda islaamka ee aad u abtirsiimo sheeganaysaan in aad barataan diinteeda kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala rahima Allah sheekh Yusuf Qaradawi sheekhaygii buu ahaa aad u jecel buu ahaa ilaaqa fiican aan u lahayn buu ahaa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam jazakumullahu khair ma kamid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xiran channelada warbaahinta nolosha islaamka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka, Instagram-ta iyo TikTok-ga nagala qayb qaado siifidinta dacwadda islaamka hamigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelino